سمعي وعيها الله والشيطان بكليته مسؤولك إلى حنا كبر يعني ومدى يسوي العفيان runtiina Soomaalidu waxay tirada waayeen wadkiis waa yaqaana anigu waxaad moodaa xogaayar in dabar jibin dad aan aad ugu kalsoonaa igu sameeyeen waxa marka khaldamay waxay ahayd dabarka toogasho inta badan dadka ay lahaayeen hore u naqaanay anagu laakiin adaan ku tuseynay ku sabarsiinay maadaama ay nin xarku dhiga meel taagan aanu ku lahayn nima taqaariyaadka lama anigu ma filanaynin in ilaa heerka naga soo dhaweyd meesha naga sii gaarsaneed iyo meesha maanta ay ku dhamaatay in saa ku dhamaanayso ma filan isma lahayn barnaamijkan sidoo u dhacay waa ajiib waana waxyaabo aniga ilaahi subxaanahu wa ta'ala ayaa naxariis iga dhigay isku iska dhiseen saarada aan aaminay waana ku sheegaa markee aniga waxaan ahaa halgabaan weyn waxaan ahaa gudoomiyaha kudlada shacab waxaan ahaa runtii nabada nolol waxaan ahaa nin runtii ka soo dhowday inaa xataa ilaado farmaajo iwaag horde aabi waxba dhiijinay laka dira Allah masala ala farmaajo inaa dadka dhahaan hataa inay naga soo dhawaato haddii marka ilaahay xilka iigu dari lahaa waxaan u malaynahaa inaan ka tarbiya noqon lahaa ummad badan dardar lahaayoon sii waalan lahaa marka ilaahay wuxuu maadaama uu jecel yahay adoon la jecel yahay ilaahay iga dhigay inuu yiri Cabdiraxmaan maya hadda ma qaadan kartid kursiga markii kuma haboonid saa u socotay dhaqanka ku socotay kuma haboona oo marka asxaab saas looga sameeyay aniga saas aan qaatay waana aaminay saas yeera tahay ilaah baan mataqaanaa in naxariista rabbi subxaanahu wa ta'ala ina salaad shukr ugu tukado ila ilaahu waxaad ii garataa saxa runtii haddii dadka ay iswareystaan yiraaho shalayso adigii taageersanaa farmaajo yes waa taageersanaa 100% boqolkiiba laakiin qofku inuu axdi leeyahay ballan leeyahay diin leeyahay ayaa qofka lagu raacaa laguna sameeyaa anigii intaas oo u sameynayay ilaahay wuxuu iga gargaaray inuu yiraahdo joog meesha ku socoto waa khalad waxay noqoto waxa waaye in 7 saac habeenimo la yiraahdo bax irgada qaado tag bay dhabo 7 saac galabnimana telefoon laga soo daba diro la yiraahdo asaga ma haya macnaheedu aqi la ta'ti give and don't give see hasiniya marka taas ay noqotay marka ma qurux badnaa inta hadda soo gashan waxaan u sheego in noocaas iyo nooc la mid ah ay ku dhici doonto markii raggii ani iga daraa oo iga fiicnaa weli gabdhihii wiilalba leh oo runtii iga sii dhawaa aniga dee dhawr ma ku sabiiray anigu idin sheegay taariikhdeedu waxay ahayd laakiin iga sii dhawaa iga sii fiicnaa ee har habeen lana quraacay lana qadiyay lana cashiiray waxaa ka mid ah wasiirka maanta competent ministerka wasiirka shaqadii arrimaha bulshada ورئيس وزراء وقعد بدنا وحرمت بدنا وشرب بدنا وقاس مثلا عبد الوهاب إلا صادر اللي وقاس هذا وقاس كبار بتاعي كل هذا كلام بركو بيروسو يستاجل لي حتى لقابله واي مركا just name it أو وزير الدفاع حسن عمر معاوي ولا يري what the best friend ولا قرابة هوسي هذا رعاوي مركا أنا ما يدينا يا عبد العزيز حسن محمد وولالكي وصاحبكي ومدحونا كون فرق البيت amarada meel kale ka socdaan si kala la soo mataqaanaa la soo amraa guddiga doorashada ee federaalka iyo guddiga doorashada ee siidka amar bay ka qaataan background kale oo hatta usan waxba ku lahaaneen tala ku lahaaneen Cabdi Aziz marka qofka in la iska eedeeyo maaha laakiin waxay la haboon in meesha ay jirto la aado meesha ay jirto waxa waaye farmaajo qofku rabana waa soo saarana qofku rabana waa diidaya ogowna laakiin tilkal ayaamul dawla been naas waxay wareeganaysaa wareegada imaanaysaa in la sabro dalka loo sabro dadka loo sabro diinta loo sabro ayaa muhiim ah